kadib markii maamulka madaxweyne Donald Trump ee dalkaasi Mareykanka uu dhimay maalgelintii dowladda dhexe ee dalkaasi ay sii jirtay jaamacadda Harvard oo ka mid ah jaamacadaha ugu caansan dalkaasi Mareykanka iyo dunida soo saarta hogaamiyaasha dalkaasi iyo dunidaba ayaa waxa uu go'aansaday gudoomiyaha jaamacaddaasi Alan Geber in uu si iskiis ah isaga dhimo mushaarkiisa 5% ka mid ah mushaar dhimistan uu si iskiis ah ugu dhawaaqay madaxa jaamacaddan oo la filayo in ay la qaadan doonaan mas'uuliyiinta kale ee jaamacaddan ayaa waxa ay dabaqmi doontaa ama ay hirgeli doontaa sanad dugsiyeedka cusub ee ku beegan 1 July ee sanadkan aynu ku jirno ee 2025 madaxda jaamacadda Harvard ayaa sanadkii mushaar ahaan u qaato in ka badan $1 milyan oo dollarka Mareykanka ah taa oo u dhiganto in ka badan 12 milyan oo koronka Norwejiga ah maamulka madaxweyne Trump ayaa dhawaan sare u qaaday hanjabaadaha ah in uu jaamacadda ka xayuuminayo dhaqaalaha dowladda dhexe ay siiso iyo weliba canshuur dhaafka ay u samayso dowladda dalkaasi haddii aysan qaadan qorshaha siyaasadeed ee uu madaxweyne Donald Trump wato waxaa dhacay toddobaadyadii hore in 8 ka mid ah hay'adaha federaalka dalkaasi Mareykanka ay ku dhawaaqeen inay ka dhimi doonaan jaamacaddaasi adduun lacageed oo gaarayo $450 milyan oo dollarka Mareykanka ah jaamacadda ayaa waxa ay dhaqaale badan ka heli jirtay dowladda dhexe iyo sidoo kale maamulada federaalka iyo hay'adaha ka dhisan dalkaasi Mareykanka iyadoo taasi ay jirto ayaa waxa ka sii horeysay in maamulka madaxweyne Donald Trump ay horey jaamacaddani uga jareen adduun lacageed oo gaarayo 2.2 milyan oo dollarka Mareykanka ah taa oo ay dowladda federaalka dalkaasi ku maalgelin jirtay jaamacaddaasi kadib markii ay ka hor timid go'aamo uu soo saaray Donald Trump oo ku saabsanaa qaarkoodna ay ka mid ahaayeen mudaharaadyo ay sameeyeen ardayda kuwa oo looga soo horjeeday xasuuqa ka dhacaya marinka Gaza halka ay wararka ugu doorkaroon idinkaga imaanayaan waa Somali Voice in Norway ama codka Soomaaliyeed ee Norway waxaan idinla socodsiinayay aniga oo ah Cabdullaahi Shiine